indhaha ayaa lagu wada hayn doonaa garoonkii Itixaad Stadium 6 qadar 30 daqiiqo oo laga baasan doono kulanka adag ee u dhexeeya kooxaha Manchester City Arsenal ka qaybka horyaalka Premier League. Labada kooxood ayaa sanadkan hardan adag ugu jira inay ku guuleystaan horyaalka. City ay doonaysa markii afraad oo xiriir inay ku guuleysato horyaalka Premier League, halka Arsenal sanado badan kadib ay doonayso in dib ugu soo laabato saaxada tartamada inay ku guuleysato horyaalka Barclays Premier League. xifaaldan wuxuu dhexeyn doonaa laba macallin oo ka soo wada jeeda hal wadan oo ah wadanka Spain. Labada macallin ayaana kuwo iska soo shaqeeya maadaama Mikel Arteta uu ka yimid kooxda kubadda cagta Manchester City caawin uu ahaa Pep Guardiola, laakiin sanadihii ugu dambeeyay macallinkan ayaa doonayay inuu soo bandhigo oo noqdo macallin ku guuleysta tartamo kala duwan. Tan iyo Janaayo 2015 Arsenal ayaan ku badin Itixaad Stadium oo hubaal inay jebin doonto haddii ay doonayaan inay ku guuleystaan horyaalka markii ugu horeysay muddo 20 sano ah. Labada kooxood ayaa laga yaabay inay ku jiraan qaabaraadkoodii fiicnaa ka hor kulankan. City waxa ugu dambeysay kulan laga badiyay bishii December, waxayna u muuqataa ifafaalo wanaagsan inay ku soo celiyaan saddexleedii xilciyaareedkii hore ku guuleysteen. Dhinaca kale Arsenal ayaa ku faanay 8 gool oo isku xiga maadaama ay u soo baxeen wareegga 8 tartanka Champions League ee ka soo adkaadeen kooxda FC Porto 14 sano kadibna ay gaareen wareeggaasi. Dhinaca kale Manchester City ayaa doonaysa inay sii wado wadadeedii guulaha xilli ay qabaan dhaawacyo kala duwan. Kooxda martida loo yahay ayaa isha ku haysa dhaawacyo dhowr ah kulankan, waxaana jira ciyaartoy la xaqiijinaysan ciyaari doonin sida Kyle Walker iyo ninka lagu magacaabo John Stones. waxaa shak ku jira inay ciyaaraan Manuel Akanji, Jack Grealish, Ederson oo dhammaantood maalnimadii shalay ahayd lagu arkay tababarka kooxda Manchester City lagu daray Kevin De Bruyne. Pep Guardiola ayaa xuwaala inuu isku diyaarin doono shax adag xitaa haddii ciyaartoydaas oo dhan ay maqnaadaan, laakiin City waxaa keedkeeda fadhiya ciyaartoy muhiim ah oo aad wanaagsan. City waxaa keedkeeda kaga tegi doontaa keed khafiif ah oo dhalinyaro ah. Arsenal ayaa kalsooni ku qabteen Bukayo Saka, Gabriel Martinelli iyo ninka lagu magacaabo Magalas ee taam noqdaan kulankan kadib dhaawacyo dhawaan soo gaaray. Alexander Zinchenko, Tomiyasu, Kawiro ee dhammaantood ku tartamaya booska daafaca bidix, halka Arteta ay tahay inuu go'aansado midku ku soo bilaaban doono Jorginho, Thomas Partey, Alexander Trossard iyo ninka lagu magacaabo Declan Rice, Odegaard, Martinelli oo taam ah dhammaantood. Inta badan Jorginho ayaa lagu arkaa kulamada waaweyn oo macalinka adeegsaday kulamadii ugu dambeeyay. kulamada isku xiga adkaanaysa kooxda Manchester City. Arsenal ayaa soo hafjartay maadaama ka adkaatay tartan Community Shield ee ka qaaday kooxda City iyo guushii ugu dambeysay Martinelli guul ku hogaamiyay kooxda Arsenal oo keentay in goolihii xiriirka ah Manchester City la istaajiyo. Haddaba daawade yaa isleedahay oo adkaan kara kulanka Arsenal ee Manchester City ee xiisaha badan qaybta ka horyaalka Premier League.